Cusbitaalka Kalkaal oo ka mid ah cusbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ayaa maantay bulshada Soomaaliyeed waxa uu soo bandhigay dhakhtar cusub kaas oo lagu magacaabo Dr. Rafish oo ka yimid dalka Hindiya. Dhakhtarkan ayaa ka caawin doona bulshada Soomaaliyeed qaliimada lagu sameyn doono kaliyaha kaadimareenka iyo taranka ragga oo dad badan oo Soomaaliyeed dibadda u aadi jireen. Dhakhtarkan ayaa ka howl bilaabi doona cusbitaalka Kalkaal oo maanta bulshada loo soo bandhigay. Dr. Mahad oo ka mid ah dhaqaatiirta cusbitaalka Kalkaal ayaa warbaahinta u sheegay Dr. Rafish inuu yahay qabiir dhanka caafimaadka kaas oo muddo ka soo shaqeynaya dalka Hindiya waxaana Soomaaliya u yimid inuu ka caawiyo bulshada cudurrada ku dhaca kaliyaha kaadimareenka iyo taranka. Dr. Rafish dhakhtar Hindiya oo ka yimid wadanka Hindiya magaalada Bangalore waa dhakhtar PhD holder heer sare ka gaaray cilmiga urology-ga qaliimada dhakhtarka uu sameeyo waxaa kamid ah waxa la yiraahdo URS burburinta dhagaxaanta oo lagu burburinayo laserka iyadoo qofka jirkiisa aan la jeexaynin wuxuu sameeyaa waxa loo yaqaan TURB qofka qanjirka prostatada in laga soo baxsho asoo jirkiisa aan la jeexaynin wuxuu sameeyaa waxa la yiraahdo TURBT oo macnaheedu yahay in burooyinka kaadahaysta ku jirta la soo baxsho wuxuu sameeyaa waxa loo yaqaan VIU oo macnaheedu yahay in ciriiriga ku dhaca tubada xubinta taranka dhaxmarto kaadida qaada markuu ciriiri ku yimaado in la furo. Dhakhtarku wuxuu soo kordhiyay mashiinka loo yaqaan ESWL oo ah qofka jirkiisa asoon la taaban oo qalliin lagu sameyn ama aan la suuxin in dhagaxaanta kaliyaha ku jira laga soo baxsho. Wuxuu soo kordhiyay dhakhtarka wax la yiraahdo pediatric urology oo dhaqaatiir Afrika dhaqaatiirta pediatric urology aad ay ugu yar yihiin in qofka ilmaha yariiska ah qaliimada pediatric loo sameeyo urethroplasty loo sameeyo hypospadias posterior urethral valve fulgration waxyaabahaas oo dhan uu dhakhtarka sameeyaa waxaan keenay laser urology holmium laser aan isticmaalayna goordhow iyo mashiinka PCNL-ka oo dhagaxaanta waaweyn oo Stockholm-ka loo yaqaano oo dhagaxaanta kaliya buuxiye si looga soo baxsho dhankaas waa dhanka urology-ga dhakhtarku wuxuu kaloo takhasuskiisu yahay ku shaqeeyaa andrology wax la yiraahdo ah taranku daaweeyaa dadka aan waqtiyo badan aan wax dhalin ayuu daaweeyaa xididada xiniinta iyo markay halaabaan varicocectomy wax la yiraahdo. Dr. Rafish oo dalka Hindiya ka yimid isla markaasna la hadlay warbaahinta ayaa ku faraxsan imaatinka Soomaaliya waxaana uu bulshada Soomaaliyeed ka daaweyn doona cudurrada ku dhaca kaliyaha. I'm Dr. Ravish, urologist from Bangalore. I'm coming here to Somalia from past 3 years and this is the 4th year I'm coming here regularly. If I see from the first time when I come to now, there is a huge improvement in the facilities here for urology. A lot of endourology work is being done here. Now we are doing URSs here, TURP, TURBTs, bladder neck incisions, VIUs and endourological work is going on. We are also doing a lot of andrological work which will help in for infertility. If you see in infertility, there's a lot of varicocelectomies are there. There is block in the vas and there is a verumontalum cysts which have been decompressed where the fertility also improves. Cusbitaalka Kalkaal ayaa baryahan wuxuu wada qorsho dadka dibadda u aadaya caafimaad in dalka gudihiisa wax lagu qabto isla markaasna dhaqaatiir heer caalami ah dalka uu keenayo bulshada Soomaaliyeed. Cabdikariin Shadane, Jubbaland TV, magaalada Muqdisho.